soo dhawaad saaxiibayaal. Qisadeena maanta ama barnaamijkeena maanta waxa uu daaran yahay duug dhac weyn ka geystay Mareykanka sanadihii 90-yadii. Dhaca iyo xatooyada iyo isdabamarinta u geystay ninkan waxa ay hoos u dhac weyn ku sameysay saamigii baabuur iibinta ay kasoo geli jiray shirkadaha automobilka ama gawaarida soo saara ay ku yaalaan dhanka iyo dalka Mareykanka. Waxa ayna u midoobeen sidii ay suuqa ugu saar lahaayeen ama gacanta ay kusoo dhigi lahaayeen booliskana ugu wargelin lahaayeen qofkan suuqooda ku ciyaaray gawaaridoodana dib u iibin kusii sameynaya weliba qiimaha ay ayaga kusoo saaraan qiimo ka yar 90% suuqa dadka kaga iibinaya. Ayaga oo ka duulaya dhabeynta go'aankooda ayaa waxa ay dib habeen ku sameeyeen ayna kordhiyeen security gawaarida ay soo saarayaan si xatooyada ee u yaraato ama haddii ay dhacdo xatooyo dib raac si fudud loo helo gaarigii la xaday. Haddaba qorshaha dhaca iyo isdabamarinta baabuurta qaaliga qiimahoodana aadka u sareeya waxaa mastermind ka ahaa ama agaasimi jiray qorshahooda ninka lagu magacaabo Bill Dalal oo asal ahaan kasoo jeeda Hindiya. Bill Dalal fursadda xatooyada waxa ay kasoo gashay maadaama uu ahaa nin makaanig ah aqoon weyn u leh gaariga entirely waxa uu ka kooban yahay farsamo dhan walbana u lahaa gawaarida. Asigoo ka faa'iideysanaya midaas waxa uu furtay company dib u habeyn ku sameynaya gawaarida crash ka noqday ama laga dhamaaday oo la iska soo tuuray. Asigoo ka faa'iideysanaya ayaa waxa uu xatooyo dhanka gawaarida ah qorsheeyay ama dejiyay qorshihii lagu dhici lahaa gawaarida ugu qaalisan ee markaa kambaniyada automobilka soo saaraan. Haddaba gawaarida uu ninkan dib u habeynta ku sameeyay ee la soo xaday waxa uu suuqgeyn u sameyn jiray Canada iyo weliba wadamada kale ee Yurubiyaanka ama Latin America ku yaala. Maalin walbana waxa uu xatooyo ama isdabamarin tiimkiisa ay ku sameyn jireen gawaari gaaraya 30 gaari oo weliba ah luxury cars. Haddaba su'aasha isweydiinaysa waxay tahay sidee ninkan ugu suura gashay in wadda sidaa u horumarsan technology ahaan dhac maalin walba 30 gaari ah geysto. Haddaba aniga ku sheegay sidaan hore kuugu sheegay waxa uu ninkan kambanigiisa qaabilsanaa in uu dib u iibsado gawaarida crash ka noqday markaa la nacaya. La wareegida gawaarida noocaas ah waxa ay fursad u siisay in uu identification u helo gawaarida uu soo xado kadibna si fudud suuqgeyn dib ugu sameeyo weliba qiimaha shirkadda gaarigaas soo saartay iyo suuqa kugu iibinaysa qiimo ka yar 90%. Si qorshahaas u guuleysto waxa uu shaqo geliyay nin ku fiican gawaari furashada ama furidda albaabada gawaarida qaaliga ah. Sidoo kale waxa uu shaqaaleysiiyay qof ku fiican programmingka iyo hackingka si uu u hackeeyo programka gaariga shirkaddu ay u sameysay si uu uga dhigo mid aanan tixraac u yeelan. Qorshihiisa intaan kuma keeno waxa uuba la heshiiyey qof sargaal ah oo ka tirsan intelligence-ga si hadhow uu ula socdo xogta markaa asiga ku saabsan ee intelligence-ga ay ka hayaan. Si walba uu qorshe u dejiyo dhan walbana qorshihiisa ugu hagaajiyo mar waa fashilmee oo waxaa ninkan kusoo baxday caddeemo gawaari la xaday waxaana lagu helay kiis waxaana la dhigay xabsiga muddo 6 bilood inta baaritaankiisa si dhammaystiran loo helayo. Muddada uu xabsiga ku jiray waxaa hawsha sii waday tiimkiisa waxa uuna xabsiga ka sii waday qorshihii dhaca iyo dib u iibinta gawaarida qaaliga ah la soo dhacay. Haddii gawaari qaali ah uu soo dhaco qiimihiisu yahay 90,000 oo kale waxa uu dib u iibin ugu sameynayaa qiimo gaaraya 10,000 ama 15,000. Waa dareemi kartaa farqiga aadka u weyn ee u dhexeeya qiimaha suuqa iyo qiimaha uu asiga suuqa madow dib u iibin ugu sameynayo gawaaridiisa. Dabagal iyo dadaal ay sameeyeen ciidamada intelligence ee Mareykanka waxa ay soo ogaadeen in xogtaada la sii bixinayo taasna ay caddeynayso in qof intelligence ka mid ah uu wala shaqeeyo ninka si ay u helaan xogta qofka. waxa ay soo qabteen
qof ka mid ah tiimkii Bilaal si looga helo xogta qofka intelligence-ga ee la shaqeeya ayaga. Nasiib xumo ninka kan ay soo qabteen wax xog ama information kama uusan haynin qofka intelligence-ga ee la shaqeeya Bilaal, laakiin cadaadis dheer oo la saaray kadib waxa uu sheegay qof kale oo tiimka la shaqeeya oo asigana qaabilsanaa soo dhacida gawaarida. Soo qabashada ninka kale waxa ay sahashay in la helo qofka intelligence-ga, waa sida ay xogta ku dhigaan tiimka intelligence-ga ee kiiskan baritaanka ku hayay. Laakiin ninkan la soo qabtay waa sax oo aqoon uu leeyahay ninka kale, waxa ayna u sheegeen intelligence-ga in la siin doono xorriyad, dibna loo sii doono xorriyadiisa, qiimo aad u weyn abaalmarin loo sii doono haddii uu ku caawiyo helidda qofka intelligence-ga ama shaarka dowladda xiran ee kiiskan xatooyada qaybta ka ah. Dhanka kale, intuu xabsiga ku jiray Bilaal waxaa howsha sii waday xaaskiisa oo xatooyadii gawaarida maba joogsanoo barteeda kasii socotay. Ballanqaadkii intelligence-ga u sameeyeen ninkii ay soo qabteen waa uu ka biyadiiday oo maya ayuu yidhi, ma sheegayo qofka intelligence-ga oo aniga wax aqoonba uma lihi. qofkaad idinka sheegaysaa aniga waa sax tug baan ahaa, gawaarida waan farsamay jiray, laakiin wax aqoon uma lihi qofka intelligence-ga aad idinku sheegaysaan. Ugu dambeyntii ninkii maxkamadda la soo saaray waxaana lagu xukumay 7 sano oo xabsi ah maadaama uu asiga qof lagu shaqaysanayo. Ninkii kaloo Bilaal lahaa asigana maxkamadda waxay ku xukuntay 10 sano oo xarig ah. Ugu dambeyn Bilaal waa uu soo dhamaystay xarigiisii waxaana la soo daayay sanadkii 2022 waxa uuna dib kasii bilaabay asigoo age ah oo weliba 60 jiro xatooyadii gawaarida. Ileen waxaad barato waa baaska baa la yiri. Ugu dambeyn howlihiisoo dib kasii bilowday 6 bil gudaheeda mar labaad la soo qabtay waxaana la dhigay xabsi daa'in inta noloshiisa ka dhiman.